kulan fayla akiyaartan oo guulida hayta warteelka Arlaadi ka dhawaada warkii hamiineed oo siina dareersiiyay anoo Xuseen Geesi qodobadan ku weyn warka loo doorshay waliba kumid aha wasiirka arrimo gudaha xukuumadda Soomaaliya oo daahfuray ansixinta siyaasadda qaran gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna doga magaalada Muqdisho oo geega hadagu ku gooy barxadda biyaasa banaanbaxyaal eedan ku horjeedaan ciidamada TPLF oo ka socda magaalooyinka Jigjiga ee dalka Itoobiya toodana sharafta leh xanas waliba hayana qodobadii ugu weynayeen ee warkaan hamiineed haskanaado fayla guulatoodana sharafta leh hadana ka dhawaada warkii oo faahfaahsan wasiirka arrimo gudaha xukuumadda Soomaaliya yaa waliba usageega afaftigay ansixinta siyaasadda qaran saasato waliba kulankaas ku qayb galay wasiiro ku tirsan xukuumadda Soomaaliya wasiirka arrimo gudaha xukuumadda Soomaaliya Mukhtaar Xuseen Afrax oo geega afaftigay kulan la ka ansixiyay siyaasadda qaran ee dijooka iyo federaaleynta agaasimo guud ee wasaaradda arrimo gudaha ee Soomaaliya Said Abdullahi Aliso oo ku warbi bilawka iyo reed ingiliisiyowka meel u samarahaya waxa guul noo ah maanta in aan nahay dadkii calafka iyo nasiibka u yeeshay in ay maanta siyaasaddaas qaran ay gudbiyaan oo ay u gudbiyaan golaha wasiirada wuxuu ku sharfan yahay wasiirkeena wasaaradda arrimaha gudaha hogaamintiisa iyo liid gareentiisa waxaan rajeynayaa insha Allah siyaasaddan in la gudbiyo wasiirka howlo guud iyo guriyeenta oo uu kumad mas'uuliyiinta ku qayb galay kulankan iyo waliba uu sheegay intii uu rajo badan u ka qaba reed ingiliisiyowka marka waa siyaasad aad muhiim u ah guud ahaan dalkoo dhan muhiim u ah waxaan rajeynayaa wasiir Mukhtaar iyo tiimkiisa annaga howlihii guud aan nahay bahwadaagan nahay wada shaqa naga dhaxayso laakiin maamulada iyo degmooyinka iyo waxaas oo dhan iyo siyaasadihii lagu jihayn lahaa wasaaradda looga fadhiyaa oo gabagabada kulankan yaa waliba uu ka hadlay wasiirka arrimo gudaha waliba uu sheegay intii kulankan uu sameeyay ko muhiim ah bulshada Soomaaliyeed wasaaradda arrimaha gudaha ee xukuumadda federaalka Soomaaliya muddo waxay ku howlanayd in ay dhameystirto xoojinta hanaanka maamul baahinta dalka si taas loo gaaro wasaaraddu waxay isku hawshay inay dhameystirto siyaasadda qaran ee maamul daadejinta iyo federaaleynta dalka iyadoo la tashiyo badan la sameysay dhammaan hay'adaha dawladda heer federaal dawlad goboleedyada xubnaha ka ah federaalka iyo maamulka gobolka Banaadir gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna doga magaalada Muqdisho ayaa waliba geega hadagu ku gooyay barxadda biyaasa oo reedindisow la kusuubi faafaahin arintaas ka saabsan waliba ha koobay Maxamed Nuur Faransa gudoomiyaha gobolka Banaadir waana eedoga Beledka Muqdisho mudane Umar Maxamed Umar Filish iyo geega hadaga ku gooy dhismo barxad biyaasa liibar degmada Xamar Jajab oo dawladda hoos Xamar ku suubi dibandhasow meela soolon ku tirigalay in la ku baakima baaburta hamulka iyo saasato silan yaray lahay saxamada bilaaran ee ka jarta isku socodka caasibada barxadda biyaasa liibar oo goobdan guud yaa muddo ku dhow 30 sano aan halna wal dayactir iyadoo dhawaan doga Beledka Xamar amar ku bi dhismo goobtan bulshada lan qidmay waxa maantay aanu joognaa xarag jarka baakinka ama barxad gaadiideedka weyn magaceeda la yiraahdo biyaasa libero taas oo ah goobaha dawladda hoose ay leedahay ee aan helin dayactirka iyo xanaanaynta ay u baahnaayeen walaalayaal xaruntan la dhisay dacdarro
iyo meel qashinka lagu qubo iyo meel dariiqaystayaasha ay mataqaanaa ay daroogada ku cabaan bulshadana ku dhibaateeyaan ayay ahaan jirtay wixii burburkii ka dambeeyey isla markaas bulshada Soomaaliyeed ee ku nool gobolkan Banaadir waxay u qabtay baahi weyn sababtoo ah gaadiidka xamuulka iyo gaadiidka dadweynaha oo hadda bajaajka u batay haddii magaalada lagu soo wada fasaxo waxay ka imaanaysay sida taliyaha nabadgelyada wadooyinka uu u sheegay zaxmad badan iyo shilal badan arrintaas ayadoo laga ambaqaadayo dadaal dheerna loo gelayo sidii xal loogu heli lahaa ayaa taliyaha booliska Soomaaliyeed iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir oo aniga ah iyo wasiirka gaadiidka wuxuu u yeeray madaxweynaha jamhuuriyadda wuxuuna amar lagu siiyey in wax laga bedelo sida hadda magaaladu ay tahay oo maareen loo helo shilalka iyo zaxmada magaaladii kala xiray anagoo fulinayna oo amiirtaas ayaan si gaar ah ugu fariisanay dhaqangelinta arrintaas waxaan la kaashanay hay-adihii takhasusiga ku lahaa sida taliyaha nabadgelyada wadooyinka iyo guddigii gaadiidka gaar ahaan kuwa xamuulka gobolka Banaadir oo runtii ayagoo culays badan wada la kulma zaxmad badan iyo ciriiri badan oo mataqaanaa ama bajaaj ahaato ama bil ahaato ama baabuurta raacada ahaato way isxamili waayeen waxaan dadaal u galnaa marka sidii loo kala maarayn lahaa guulatoodana waliba weli la dareertana warkii hamiinad oo aysan kula dareertan warseelka Arladi banaanbax xoog leh ayaa waliba ku dareeray magaalada Jigjiga ee xarunta dawlad deegaanka Soomaaliyeed Itoobiya waliba ayo ha ku horjeedana sidii lonka horseeda lahay jabhadda TPLF faahfaahin arrintaas ka saabsan waliba hanin koobay Nuur Ambassador mayba geeka kahiwiin oo lahan ku horjeeda kooxda TPLF ka socdaana magaalada Jigjiga ee dawlad deegaanka Soomaalida iyo magaalada Addis Ababa ee caasimadda Itoobiya dadweyne fara badan oo qaasho wadaan sawirka ra'iisul wasaaraha Itoobiya ayaa haniska baxay magaalada Addis Ababa hanasoyo taageero muujiyeen xukuumadda Abiy Ahmed dadka haniska baxeen magaalada Jigjiga yoona dhinisho ha ku horjeestay kooxda TPLF iyo ka dhawaaqeen ereyo iyo ka taageereen ciidamada federaalka Itoobiya oo dagaalka kala jara kooxda TPLF dagaalkan ka socda Itoobiya ayaa maalmo wada dhaafi hoogaysidii maybaan ciidamada kooxda TPLF ka dhawaadeen caasimadda Itoobiya ee magaalada Addis Ababa Nuur Ambassador warteelka Arladi biladka Muqdisho ciidamada dawladda Soomaaliya ayaa waliba howlgala la sugaw amaanka ku suubiyana magaalada Beled Xaawa saasato waliba iyo gobodeena dadlan ku shakisanay falal amni dare faahfaahin arrintaas ka saabsan waliba hanin koobay Cabdisamed Cali Al-Azal ciidamada nabad sugidda sirdoonka qaranka qaybtiyo gobolka Gedo yaa hamiinimadii xalay waliba iyo howlgal qorsheysan ku suubiyana xaafado shil duwan ee degmada Beled Xaawa ee gobolka Gedo howlgalkan iyo waliba horkahay taliyaha howlgalinta ciidamada nabad sugidda degmada Beled Xaawa Asfataax Cumar walibana ciidamada iyo baareenga baawurta iyo waliba dadka qaar oo lagu shakay intii howlgalka dareeriya waliba ciidamada iyo qobadina dad badan dhalinyaro oo lagu shakay haanas oo ciidamada isku fasaxeen tan dheer kureeda sidii sheegeen saraakiil ciidamada nisaayo waliba asaas oo kala indheendheen suubiyana sida hamiinkii in shaqeeyeen goobo ganacsiga ee degmada Beled Xaawa si qiimeyn lagu suubiyo xaaladda amni ee degmadaas taliyaha howlgalinta ciidamada nabad sugidda degmada Beled Xaawa Asfataax Cumar iyo waliba uu sheegay in howlgalada iyo nagada doonaan haana oo siroogtee lanka fuli doona degmada Beled Xaawa iyo waliba deegaanada hooskooyo degmada Beled Xaawa iyo waliba iyo hamartay marxalada shal duwan walibana dhowr jeer ka dagaalamay ciidamada dawladda iyo waliba haan wasiirka hore ee amniga Jubbaland Cabdirashiid Janan walow markii dambe lagu heli wali sawi dagaaladaasi Cabdisamed Cali Ibrahim warteelka Arladi Muqdisho yaa deegaanada Jubbaland la ku waramay intii abaara bahsan iyo ka jiraan yaa waliba la ku waramay intii ilaa hadda hal qof ka dhamaday faahfaahin arrintaas ka saabsan waliba nin koobay Cabdisamed Cadow
bilowgan dambu meelo badan oo ku tirsan koonfurta Soomaaliya la ka sheegahay abaaro hoog leh taas oo saameeytay heelo iyo dadka iyo meelo qaar la ka sheegay intii oon iyo baahalan dhimadahay kuriitum ila majar ee la sheegay in uu oon iyo baaha uu ka dhimaday deegaanada hoos koow Kismaayo haanas oo suubiyoon saameeyeen abaaro iyse midmad oo ka nool deegaanada abaartu ku jaran ya sheegay in abaartan soo hooglay aan saameeytay dadka ka nool tuulooyinka Buula Xaaja Cabdalla Biroole iyo deegaano kale oo hoos kooyo Kismaayo isla markaana abaartiyo saameeytay dadka iyo dunyadaba dadka ka nool deegaanada hoos kooyo Kismaayo yaan codsadaan in si degdeg ah loo gurmado dadkii saameeytay abaar Absamed Cadow warteelka Arlaadi Beledka Muqdisho qodobkaasi aan ka dambeeyay warkii hamiinad ee aysan kula dareerteen warteelka Arlaadi haddii warkaasi indhaafo waliba aysan ku heli kartaana baro bulshada una kalena Facebook Twitter iyo YouTube kulankan kulanjay oo xiiso leh nabadgelyo